dadka lixdood lixad qabay hadday soo socdaan dareemayo kulaal dareemayo nima lixdiis lixad qabin oo soo lugeeyey oo haddana yimid oo maaragtay intaas soo socday waa dareemi kartaa wuxuu maaragtay dhibka iyo rafaadka uu ku imaahayo. waxa uu maalin walba u soo gurgurtaa garoonkan kubadda cagta ee Muqdisho oo ku yaala degmada Warta Nabadda. qalbigiisa waxaa hareeyay jaceylka baaxadda leh ee uu qabo calanka gobolkii uu ku dhashay kuna barbaaray ee Banaadir. kani waa Yaasiin Maxamed Maalin, waa aabbo 33 jir ah oo qaba baahi gaar ah. Yaasiin waxa uu kaga yimaadaa garoonkan oo uu degan yahay degmada Kaaraan. waxa uu iga sheekeeyey dhibaatada uu ku qabo in uu u soo gurgurto garoonkan. والله ما شاء الله hortan waa dareemi kartaa qof maaragtay soo lugeeyay oo haddana maaragtay lixdiis lixad dhamaystirneen waa maaragtay horta waa qadar Ilaahayna mar walba waxa waajib ah inaad ku shukriso oo kula yawmin huwa fi shan alxamdulillah maalin walba dhibkeeda waa talaakin ilaah mahadkule waana dareemi kartaa iskooskaas cali kamiin dadka lixdood lixad qabay hadday soo socdaan dareemayo kulaal dareemayo nima lixdiis lixad qabin oo soo lugeeyey oo haddana yimid oo maaragtay intaas soo socday waa dareemi kartaa wuxuu maaragtay dhibka iyo rafaadka uu ku imaahayo. Yaasiin Maxamed Maalin markii hore waxa uu ku shaqaysan jiray mooto bajaaj, halkaasi oo uu kaga maareyn jiray noloshiisa iyo midda qoyskiisa. balse tan iyo markii ay ka cilidowday mootadii uu ku shaqaysan jiray waxaa soo food saartay culays xagga nolosha ah. sida maaragtay aniga waxaan ku shaqay jiray mooto liira mooto bajaaj oo ii gadan dad maaragtay muxsiniina oo Soomaaliyeed. mootadii hadda maaragtay kuleeto way burburtay oo maaragtay in badan qarku waa galsho waan ka quustay. hadda iyadoo garaash ku jirto mooto kale ka soo raacay. walaani mootadu door ciladood motorkeeda eber noqday. hadda daa'ira waa iibinaa lama iibin karo maaragtay ma buugsano oo maaragtay magaalada waxaa socota mootooyinka A iyo B ku shaqeeyaan. aniga A B iga ma ahayn maxaa ciidamada amniga ee gobolka Banaadir iguma qasqasaa jiray mootadaada waxay tahay maxaa waxay ugu qadarin jireen baahideeda gaarka ah. taas laaligeed mootadii hadda maaragtay ilaah ma kale way halawday. hooyo Hodan Tahliil oo tartankan dowlad goboleedyada uga timid dalka Mareykanka isla markaana ah taageere Galmudug ayaa ka damqatay dhibaatada Yaasiin waxaana ay ka hadlaysaa dareenka hooyanimo oo ay dareentay markii ay Yaasiin kula kulantay garoonkan. waxaan arkay maanta ma sha Allah wiilkan gobolka Banaadir waaye aad u taageersan yahay aniga gobolka Banaadir ahay aad u taageersanahay hooyo Soomaaliyeed aan ahay ma sha Allah wiilkaygo kaleeto waaye marka maanta hadiyada ugu deeqaya insha Allah telefonkiisana waa ka qoran doona haddana waxaan siinayaa $100 aan siinayaa waa hadiyade. ما شاء الله الله كاوال مريو الدنيا غير الله كاوال مريو ما واحد بوجعشان الله كسيو أولادنا باير الله كاجديو ما هو Soomaaliyeed tahay oo hooyo kale tahay waa idir naxde saayigu idir naxde ilaahay ugu idir naxo. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa Yaasiin Maxamed Maalin kula kulmay garoonkan waxaana ay u ballan qaadeen inay caawin doonaan taageerahan jaceylka ballaaran u qaba gobolka Banaadir. xaqiiqatan waa Maxamed duruufihiisa waa tixgeli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo taageerayaasha gobolka Banaadir asagoo sifay gobolka Banaadir ayuu haddana wuxuu u yimid halkan inuu kooxda gobolka Banaadir u taageero marka duruuftiisana hadduu Ilaahay yiraahdo waa ka jawaabaynaa duqeynii weynaana waa noo imaanaya ku-xigeenka arrimaha bulshada waa kana gaadiidkaasina insha Allah waa u helayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. culayska ugu weyn ee Yaasiin Maxamed Maalin haysta ma ahan gaadiid uu ku socdo oo uu ku yimaado garoonka balse waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ganacsatada iyo maamulka gobolka Banaadir oo uu taageeraha u yahay in loo abuuro fursad uu ku shaqaysto. walaa kulay tamaarday umada Soomaaliyeed waxa ka codsaha maartay isbedel muujiyaan mootada Soomaaliyeed maadaama hadda sameeyeen waxa leeyahay wax badan oo ku qaban karaan ilaa wax qabto marka taas intaas ka codsan lahaa. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed
warbaahinta qaranka Muqdisho.